بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قدوميها جامعة السمفيل دكتور عبد النور قد أهان قدومك جامعة بروفيسور باديو oo aan ugu yeeri karo magacyo fara badan laakiin waxaan leeyahay hadda sidii dad iga horeeyay ay ugu yeereen waa aabaha ama wuxuu ka mid yahay aabayaasha aqoon-yahanada maanta iska leh gogoshan ayagu inay soo bandhigaan aqoontooda mirihii ay ka soo liseen dhammaan bahda jaamacadaha kala duwan wixii halkan jooga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xaflado fara badan ayaa la qabtaa, mid walbana magacay leedahay, mid walbana magaceeda waxaa laga dheehdaa miraha ka soo bixi doona. xafladdu markay tahay xaflad aqooneed, gaar ahaan mid lagu listayo aqoonta maskaxda dadka ku jirta, dhadhan gooniya ayay leedahay, bal waxay dhadhan ka duwan dhadhanyada kale u leedahay bahda jaamacadda ama jaamacadaha ku abtirsada. ana waxaan ka mid ahay dadka ku abtirsada jaamacadaha. marka inaan maanta ka soo qayb galo xaflad aqoon-yahano ay ku soo bandhigayaan cilmigooda nuxurkii ay nooga soo saareen, aadan ugu faraxsana. marka aan hore u gudbo cilmi baarista magaca sheegaya waxay tahay oo wuxuu muujinayaa, aniga dabcan wuxuu ii muujinayaa in wax la baaro, baaritaankaasuna uu ku salaysan yahay cilmi. maxaan ula jeedaa uu ku salaysan yahay cilmi? waxaa laga yaabaa qof walboo naga mida maskaxdiisa waxbaa ku jira. dhibaato hadduu arko waxaa u muuqanaya wuxuu asagu ku xalli lahay, laakiin mararka qaar ama inta badan maskax caadiyo inta iska fikirta ayadoo kursi ku fadhida waxay ku fikirto go'aan ku gaarta, miraha laga helayo waxaa laga yaabaa cuyub fara badan inay ka soo baxaan. laakiin markii dhibaato jirta inta la fiiriyo, dhibaatadaas la qeexo, si cilmiya loo baaro meeshii ay ka timiday, si cilmiya looga soo saaro xalkeeda, markaas ayaa qofka soo saaray dadka u gudbi karaa si loo isticmaalo. marka way ka duwan tahay in dhibaato jirta baaritaan lagu sameeyo si dhibaatadaas looga gudbo. marka qof magacuu raba ha yeeshee uu dhibaato jirta asigiisu inta asagu wajaho uu go'aan ka gaarayo siduu u xallinayo, wuu dadaalay qofkaas dhibaato inuu xalliyo iyo ku talagalay. laakiin si cilmiyana uma baarin dhibaatadu waxay tahay, meesha ay ka timid iyo waxa looga bixi karo. gogoshaana waxay u fidsan tahay maanta sidaan anigu u fahamsanahay dad soo fiiriya dhibaato, soo arkay, soo qeexay, meeshay ka timid ogaaday, xalkeediina soo bandhigay. qofka aqoon-yahanka markuu intaas sameeyo, kaalintii uu ku lahay bulshadan iyo dalkan inuu hormariyo uu ka soo baxay isagu. dabcan marka hore isagana maskaxdiisa waxaan rumaysanayaa inay ku jirto war dhibaatadan sidee looga baxaa dalkaaga iyo dadkaaga haysta. way ka duwan tahay markaad research iska samayso ama cilmi baaris iska samayso aan dalkaaga iyo dadkaagaba aan ku saabsanayn. waxaa ka dhadhan badan cilmi baaristaada inaad ku salayso dhibaatada dalkaaga iyo dadkaaga haysata. markaas ayaa maskaxdaada wixii ka soo baxay ay dhadhan adna ku yeelan karaan, dalka iyo dadkana u yeelan karaan. goormay ayadu marka miri dhal noqonaysaa wixii ka soo baxay cilmi baaristaas?
markii awoodda dalka dadka haysta ay inta nala fahmaan wixii xalkoodii la soo saaray ay isticmaalaan xalkaas waxaa laga yaabaa jaamacaduhu dhammaantood cilmi baaris ay sameeyaan weliba waayahan dambe waxaan aad ugu dhiirigelinaa inta aan la kulanno war ku saleeya cilmi baaristiina dalkiina gudihiisa in badanoo jaamacadaha ka midna sidaasay yeelaan laakiin weli aniga ima soo marinin ama hadda qof nala wadaagi doona hadduu jiro halkan markuu yimaado nala wadaagi doonaa cilmi baaris miro dhal ah ee soo baxday ee dhibaatada jirtay inta la abalaay gareeya ayada looga gudbay ee ma soo marinin taas laftirkeeda weli annaga waxaan nooga baahan haddaan nahay bahda jaamacadda in aan cidda ay khusayso mar walba intaan la xiriirno aan dhahno war dhibkaanaan haysta sidaasaan u aragnaa in looga bixi hal la isticmaalo warka haddaan maanta la sii wado waxay noqonaysaa in meeshan iska taagnaado adna igu caajistaan jaamacadda waxaan leeyahay hambalyo aqoon-yahanada waxaan leeyahay hambalyo wixii ka soo baxana ilaahay ha naga dhigo ku isticmaalo ka faa'iideysta salaamu alaykum